واكي شخصي هندسي calanka buluuga ee Soomaaliya Maxamed Cawaale Liibaan waa shakhsigii hindisay calanka maanta loo yaqaan calanka Soomaaliyeed ee buluuga 1945kii 12 Oktoobar waana maalinta loo asteeyay maalinta calanka Soomaaliyeed Cawaale wuxuu xubin ka ahaa ururkii gobonnimadoonka Soomaaliyeed SYC ee markii dambena isu bedelay ururka Israa'iil Maxamed Cawaale xidigta shanta gees waxa uu asteeyay inay tahay isubaadidoonka Soomaali weyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka kooban gobollada Koonfureed, Waqooyi, Soomaali Galbeed iyo NFD. Maxamed wuxuu ahaa nin wadani ah oo la soo shaqeeyay dhammaan dawladihii soo maray Soomaaliya ilaa 1964. Allah u naxariistay Maxamed wuxuu ku guuriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada 2001. Calanka Soomaaliyeed maanta waxaa lagu naanaysaa Cawaale waana Maxamed Cawaale Liibaan.